inuu ku sifooba qaabku wuxuu naqdinayaa qaabkii shareecadu ogolayd waa inuu yahay laakiin in qurunka dadka loo qariyo maaha haddii la rabo ummaddu inay guulaysato ama si ay liibaanto waxaan leenahay dadka muslimiinta marka labadii xanuun ee ilaahay uga digay aadam dhabarkiisa markay ku jireen ayaa muhima inaynu inana uga digno mid uu ahaa gafla dadku aan eeginba waxa agtooda ka socdee warmooga laba dhibaato dadkan haysata in badan oo kitaabada iyo diinta wax ka garanaysa waxaad moodaa waxa la hayaba inaanay ogeyn waa warmoog kale masaajidun bay ogyihiin iyo waxa lagu hayo inaad moodo inay war haysaana waa munaafiqiin iyana ma oga kitaab alle wuxuu sheegayaba haafiliin waxay ka yihiin kitaabkii alle waxa ku qoraa waxa muhimka ahayd waxay ahayd kuwan warka hayaana inay kitaab alle ogaadaan iyo waxanay wadaan wuxuu kitaabku ka qabo kuwan kitaabka hayaana waxay ahayd inay ogaadaan nolosha dadka iyo waxa lagu maamulayo iyo xagga loo wado labaduba qaflay ku sugan yihiin midina wuxuu qaafil ka yahay noloshiiba ma ogiyo wax la kala macaashayo ee masaajidku mu ku xaraysan yihin midina maba oga kitaab alle iyo waxa alla ka sheegayba ee dadku muu iska hor socdaa waxa muhimka ahaydna waxay ahayd qofku inuu ogaado ilaahay wuxuu u soo diray tala ee dadkan alle kula taliyay ilaahay baa u taliyay waana taala wuxuu alle kula taliyay subxaanahu wa tacaala umamka kale inqiraab baa ku dhaco way dabar tirmaan ummadda muslimiinta laakiin ilaahay baa ballan qaaday inaanay dabar tirmaynin sababtu waa maxay umamka kale ee inaga horeeyay waxay u dabar tirmeen waxa inxiraafu kaga dhacay manhajkii iyo masdarkii ama marjacay u noqonayeen kitaabadii baa inxiraafku ka galay dabeetana way weecsameen kadibna niman baa isaga xaaraan iyo xalaalba iyagu u sameeyey kuwa ilaahay qur-aankiisa ku tilmaamayay ittakhaduu axbaarahum waruhbaanahum arbaaban min duuni illah kuwa nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam xalaashiina way u xaaraantinimeeyeen xaaraantiina way ka xalaaleeyeen way u xalaaleeyeen sababtaasay sida tan ugu sii baadiyoobeen dabeetana ay u tirtirmeen oo loo waayay diintii sax ahayd cid haysata ummadda tan se ilaahay baa ballan qaaday inaanay tirtirmaynin awalan waayo marjacay u noqonaysa baa alla u dhowray ilaahay baa wuxuu leeyahy anaa soo dejiyey waxyiga alkitaabu wasunna anaa soo dejiyey baa ilaahay leeyahy anigaana xifdinaya sidii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ugu soo degay buu dhexdeenna u yaalla isagoo aan waxba laga bedelin waxna lagu kordhin idan ummaddu mar kastoo kaflada ay ka toostaba meel ay ku noqoto marjaca bay haysataa waxaa loo baahan yahay markaasi wuxuu yihi sawaabiti nolosha inay jirto wax sugan oo dadku ay u noqonayaan mar kastoo la isqabto mar kastoo wax qaldamaan mar kasta oo la rabo in wax la saxo meel loo noqonayo sugani waa inay jirtaa meesha suganina waa kitaabka iyo sunna oo ilaahay baa dhigay ummaddanina way isku raacday inay waxay u noqotaa kitaab iyo sunno noqdo laakiin mushkiladdu waxay tahay waanay u noqonaynin haddaba way isku raaceene haafil bay ka yihiin wuxuu sheegayay amase umay noqonin waxa muhimkaana wuxuu yihi in mutagayiraadka la darso waxaan iska gedinaya in la arko dawaahirta nololeed in la isweydiiyo maxay waxa kani u dhace in la isweydiiyo aahaarta fikriga iyo siyaasiga iyo amniga iyo ijtimaaciga ay samaynayso inaan nolosha laga habsaamin in mar kastana loo celiyo marjaca macsuumka ee yaalla waxa uu sheegayo dhiman mayso ummaddan iyo ilaahay baa ugu ballan qaaday inuu mujadadiin usoo saarayo dad u cusboonaysiiya waxa kan mar kastaba waxaan leenahay marka ma jecli inaan hadalka badiyo waayo hadduu hadalku bato kiisa hore kiisa dambe dadka ilowsiiya laakiin waxaan leeyahay ummadda tan in badan oo kamid a miqyaaskii noloshuba wuu ka lumay tusaale fudud aan idin siiya inuu miqyaasku ka lunsan yihi ummadaha dunida ku nooli nolosha waxuun bay ku qiyaastaan ama gaala ha ahaadaan ama muslim ha ahaadaan waxbay nolosha ku qiyaastaan aan gaalada xataa idin soo qabto waxaa laga yaabaa ninka gaalkii noloshiisa inuu ku qiyaasto inuu shaqaysto quudkiisa maalmeed inuu soo saaro iyo wuxuu cuni lahaa wuxuu huwan lahaa iyo fasaxa uu samarka qaadan doono xagaagay fasax tagaane xagaaga fasaxa uu geli doono inuu tuurist noqdo intuu dayurad raaco ama wax raaco
shandad weyn qaato inuu meel soo booqdo oo dhulka cadceedal iyo wax soo maro wax soo indhaindheeyo oo soo noqdo. ninka caadiga ee reer yurub noloshiisa saasuu u qorshaystaa. sanadku markuu bilaabo ayuu bilaan buuggiisa yar buu qaataayo wuxuu xisaabiyaa 12 bilood mushaharku qaadan doona. dabeetana wuxuu xisaabiyaa wuxuu cuni doono o dhan toddobaad walba. wuxuu xisaabiyaa sabti iyo axad kasta wuxuu khamre cabi doono iyo wuxuu samayn doono. wuxuu kala jaraa noloshiisa intii u baaqiga noqon lahayd iyo meeshuu safarka uga aadi doono. miqyaaskiisa nololeed waa kaa uu haystaa markaa. in yar bay leeyihin oo darabawta in darabawta way leeyihin aan nolosha waxba ku xisaabin oo dhimatay. laakiin intooda badani waxaad moodaa nolosha inay qaabkaa u xisaabiyaan. innaga bal dadkeena weydiiya waa maxay miqyaasku nolosha ku qiimeeya. madaxweynaha iyo baalashluhu miqyaas quro ka dhexeeya jira soomaalida oo aan ahayn darabawt ma wada lahaa. wuxooduba waa isku darabawt. miqyaas ka dhexeeya muxuu yihi? qof kastoo shaqaynaya wuxuu ku qiimeynaya 2 mijood oo jaada. haddaad qof tidhaha shaqo qabo wuxuu ku leeyahy 2 mijoodba goyn mayseen. idan miqyaaska nolosha ay haystaa waa 2 mijood oo jaada. ma waxa xaq u leh inay noolaadaan ummadda 2 mijood oo jaada u nool? noloshiisii dhammayd qofka ku qiimaysanaya 2 mijood oo jaada camalku maanta oo dhan qaban lahaa miisaanka loo hayo lagu eegaya waxa weeyaan 2 mijood ma jaraya mise jari maayo. saad u noolaanaysaa ummadda dhan masalan burciya hargeysa qura $170,000 maalin kasta qaad siisata. markaasay ku leeyihin waa baahanay. mush macquul. ummadda markaa ka madaxda waa ilaa ka baalashalaayi mijinjaada ay u haystaan miqyaas ilxayaa o micyaari ilxayaa uu mijinjaada yahay miyay xaq u leedahay inay noolaato? waxay leenahay caqliga ka weyn wax laga bedelaa. ummaddu intay sidaan u fakerayso socon mayso. inta cuquushu noocan tahay socon mayso. miqyaas ilxayaa waa inay wax ka bedelaan. waxay u nool yihiin waa inay dareemaan. ummadda tan iyo nolosheeda si wax looga bedelaya idinkunba idinku xidhan yihin. cid cirka ka soo degaysoo la sugayaana ma jirto. ikhwatii fi lcaqiida waxaan leeyahay haddaa leedin taliyo mabda' baa loo baahanya way qoran yihiin oo way yaalin. idinku noloshiina dib u xisaabiya. nin walowbana tolkaasaad naar uga badbaadin lahayd yeel. wallahu aclam wabilahi tawfiiq. وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. waxaan halkan maanta marti nooga walaalkeen Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun oo inoo soo jeedin doona mawduuca markaa muxaadarada ciwaankiisu yahay sifaatu daaciya. waxaan u malaynayaa inaan walaalkeen ka sugno mawduucaasi inuu noo balbalaadhiyo. aanan isweydiino markaa kadib sifooyinkaasi maxaan haynaa maxaase inaga maqan. waa marka natiijada muxaadarada. waxaan leenahay walaalkeen Mustafa Xaaji Ismaaciil falyatafadal mashkuura. ama meelo gaar ah jeclay inaan gaar u tilmaamo sida daraaddeed baan u bixiyey min sifaati daaciya ama waxyaabaha ninka daaciga sifaadka waa qaar ka mid ah. waxaynu ognay dacwadu inay tahay muhimadda loo soo diray rususha ama ambiyada shaqadeeda inay ka mid tahay. waa daaciyan ila allahi biidnihi wa siraajan muniira. ilahay ba subxaana watacaala nabigiisa markuu sifaynaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamaya inuu yahay wadaaciyan ila allah, ku alle subxaana watacaala dadka ugu yeedhaya inuu yahay. daacigaasi maxaa laga rabaa markaas? sifaadkaan rabo inaan mulaaxadeeyo ko waxaan leenahay min sifaati daaciya waxaa ka mid ah athiqa bilmabda'i wannafs. kalsooni qofku inuu ku qabo mabda'a uu akrinayo ama se uu sheegayo iyo naftiisaba. markaan leenahay kalsooni waa inuu ku qabaa waxaan tilmaamaynaa waa inaan tazaczuc qofka kan ku jirin. waxaan sheegaynaa waa inuu qofku u arkaa inuu wado risaaladii ilaahay ummadda ugu talagalay inuu naxariisto. wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin. risaalada ilaahay subxaana watacaala nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam alla u soo dhiibay ee alla uu ku tilmaamayo kumaanan soo dirin ilaa inaad tahay mooyaane mid ummadda naxariiso ah mooyaane inuu risaaladaas sidaynu rumaysan yahay. taa macnaheedu waxay tahay inuu qofku rumaysnaado waxa uu sidaa inuu yahay absolute valuegi ama waxaan laga daba hadli karin. alkitaab wasunna, kitaabkii alle subxaana watacaala uu soo dejiyey iyo sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam aynu leenahay waa wax xagga alle ka yimi oo waxyiya oo ka daba hadal dambe aan u baahnayn inuu sido. walidalik ba waxaan dareemaynaa saxaabadii nebigu iyo dareenka ay qabeen markay diinta tan dadka gaadhsiinayeen ama halka ay joogeen. yani waxay ahaayeen dad isu arkaya inay yihiin usaatidat alcaalam, umamka dunida ku nool ciddii mucalimiinta u ahay.
caalamkao dhanna wuxuu ugu muuqdun inay ardayiin maadaama uu ka maqan yahay mabda'ii xaqa ahaa. macalinku yani markuu kalaaska soo galo ardadiisa wuxuu arkaa dad wax ka maqan yihiin oo isaguna uu sido wixii uu gudbinayey, oo markaa macalinku wuxuu yahay qof naftiisa ku kalsoon iyo wuxuu sheegayaba haddii uu khibrad u leeya garanayo. walidalik misaal waxay idinku filan qisadii persianiska ama farisiyiinta iran iyo dadkii deganaa boqortooyadii ka jiri jirtay iyo markay kulmayeen saxaabadu. waxaynu naqaanaa in dagaal la dhex mareen dadka muslimiinta iyo bersianka, inay codsadeen in cid loo soo diro, inuu sacd ibn abi waqaas saxaabigii la odhan jiray ilaahay raalliha ka ahaadee uu u diray 3 saxaabi midba mar, ribciy ibni caamir, xudayfa iyo mugiirata bna shucb. 3daas saxaabi ayuu kolba mid diray. 3da saxaabiba waxay la hadlayeen janankii watay markaa ciidanka kale ee gaaleed. waxaynu naqaanaa halka ay taagnaayeen marka ay la hadlayeen ninka kan boqortooyada matelayey. wuxuu damcay inuu muujiyo abhadiisa ama weynidiisa. carshigii boqortooyadu meesha dhigtay, dabeetana wuxuu gogoladay arli iska dhan ayuu gogol ku fidsaday, barkimooyin iyo waxbuu ku tiirtiiriyey. yacni wuxuu muujinayey awoodda boqortooye uu haysta iyo inta uu leegayay sida uu nimcaysan yahay. saxaabaduna muqaabilkiisa waxay ahaayeen dad dagaal soo galay, intaasoo bilood dagaal soo waday, jihaad ku soo jiray, marka horena dhul qarfaa ka yimi, maryahoodu haylyo yaryaroo iska jeexjeexan ay yihiin, laakiin sita caqiida saliima, mabda maskaxda ku xambaarsan. walidalik ayaa waxaynu garan karnaa sida ay ula kulmeen ama as'iladu weydiiyey. isagu wuxuu weydiinaya war maxaa idin soo saaray, haddaa cunno u baahantii inaan idin siiyo, haddii yani waxa idin keenay muxuu yihi, iyo waxay ugu jawaabayeen markaa ilaahay baana soo saaray bay lahaayeen, waxaana alla noo soo bixiyey inaanu ka saarno maxay qowlkii ribciy ibni caamir, dadka ay caabudaan inaanu ka saarno oo ilaahay dadkao dhan addooma uga dhigno, inaanu diiqa adduunye cidhiidhiga adduunye ka saarno oo aanu ilaa sicatiha u saarno. u fiirsan ninkuu ku leeyahay ilaa sicatiha baanu saaraya, ninka dhulkan oo dhan gogoladee boqortooyada inta leeg haysta iyo ninkan haylyaha sita ayaa kii haylyaha xidhnaa wuxuu leeyahay waxaan u socdaa inaan ka saaro dayqi dunya, dadka adduunka cidhiidhigiisa inaan ka saaro oo aan u saaro markaasi buu leeyahay waasiciis iyo ballaadhmidiis, inaan ka saaro buu leeyahay jawri adyaan ilaa cadli lislaam, diimaha kale dulmigooda inaan ka bixiyo dadka kan u saaro cadaalada islaamiga. waxaan leenahay dadkani waxay ahaayeen dad markaa kalsooni dhab ah ku qaba waxa ay faafinayaan. waxaa muhiima baynu markaa leenahay qodobka koowaad inuu noqdo qofka daacigii wixiisa inuu kalsooni ku qabo, inaanu ka khajilaynin goob kastoo laysugu yimaado, cid kastoo lala hadlayo. caalamka waxa laysku kuuqiyo dhamme waa waxaan waxba ka jirin marka ay joogto kitaab iyo sunne, ama dakaatira ha la sheegto, ama khubara ha la sheegto, ama wixii la doone kale ha laysku magacaabo. maadaama qofka uu ka maqan yahay alkitaab wasunna waa kalaa shay, waa waxaan jirin marka loo eego waxa ka maqan inta uu leegyahay. walidalik qofka muslimka ah ee daaciga ahay waa inuu kalsoonida intaa leegu qaba. waxaad moodaa maanta in la arki karo dad muslimiina oo la dhuumanaya waxa ay rumaysnaayeen, dhuumashaduna aanay ahayn baqa iyo dhibaato kale, khajil uu qabo daraaddeed ay tahay, kaanamaa waxaan wataa wax laga khajalo ay tahay. waxaa laga yaaba fi caalami algarbi inaad aragto nin muslimo kuleh niyo maan tukanin, markaa tidhahdo sababtu waa maxay, kaanamaa salaada in lagu arko kale uu la yaro khajilaya, inuu guri la galo oo kelidii uu tukado o kale, inuu jeclayo aan dadku arag inuu tukanayo o kale. yani waa qof mabda uu rumaysnaa ka baqayo ka cabsanaya. sidee buu cid kale wax u gaadhsiin karaa haddaanu isagiiba kalsoonida intaan le ku qabin ama aanu siqo ku qabin. ثانيا waxaan leenahay qofku siqada dabadeed inuu la yimaado alxirص cala almabda aw اlikhlaas, mabda'a kan inuu isku dayayo inuu ilaalinayo, amase inuu mukhlis u yahy, inuu daacad mabda'iisa u yahy, inuu isku dayayo dadka kan aan mabda'a haysan inuu arkayo dad jahanamo ku daadanaya inay yihin.
qofku markaasi wuxuu awlawiyada siinaya markuu arkayo dadkani dad naar ku daadanaya inay yihiin siduu uga badbaadin lahaa. waxa uu arkaya waxa muhiimada koowaad le noloshiisa inay tahay mabda'a kan inuu ilaaliyo. walidalik baa ilaahay subxaanahu watacaala nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu sifaynaya waxaa lagu tilmaamaya falacallaka baaqicun nafsaka cala aahaarihim in lam yu'minuu bihada alxadiisi asafa. وفي آية أخرى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وفي آية أخرى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وفي آية أخرى ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق. نصوص القرآن كي وحي تلمامتا النبي عليه الصلاة والسلام مبدأ إيسا سيدا وطاعة وضوها سيدا وإلاليني سيدا ونفي النفيس بوغو بحيني sida uu dadka ula jeclaa inaanay jahannamo ku daadan ilaa xad ilaahay markaa leeyahay lacallaka baaqicun nafsak ilaa xad alle subxaanahu watacaala uu u hiilinayo oo uu u tilmaamayo inuu nafta dhowro oo laleeyahay waxaad ku mudan tahay naftaadaba inaad ku halaagto dadka kani inaanay iimaan la imanayn daraaddeed. yacni si aad isaga daba ridayso dadka kani inay alle iyo rasuulkiisa rumeeyaan taasi inay ku halaagtaabaa lagaaga cabsi qabaa. kaanamaa la leeyahay naftaadana dhowrso. meesha waxaa ku jira markaasi qofka daacigii inuu mabda'iisa ikhlaas ula yimaado, inuu xariis yahay mid ilaalinayo dhowraya, mid ka cabsi qaba dadka jabkooda inuu yahay. walidalik ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nabiga wuxuu ku sifaynaya laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi ma canidtum xariisun calaykum بالمؤمنين رؤوف رحيم. وحال كسفين سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. ورسول أي كدر أنت يا مسكو عليك تيبا الله سبحانه وتعالى دبتين هي مشكلة دين يدي سوى حريص عليكم با إلهي المام سبحانه وتعالى. فالداعية سفديس وحي تهي لباد بينو لاني إنو إن بدن أهلوبه ama in badan inuu naf iyo nafiisba ku bixiyo sida uu dadka jahannamo uga badbaadin lahaa. maskaxdiisu inay ku koobnaato dadka kan jahannamo ku daadanaya say uga dhici lahaayeen. maxaad yeeli lahayd haddaad aqal gubanaya kusoo baxda ama qof ololaya hadduu kaa soo baxo? ma waxaad ku xisaabtami lahayd bal horta si calculationskaaga inta wax isku toostoosiyaan adeegtid ama sidatan aad yeeshid si maskaxdaadu waxa kaloo dhan way ilaabi lahayd oo waxay mashquul ku noqon lahayd in qofkan ololaya saad u baktiin lahayd. ficlan waxa weeyaan maskaxdaadu waxa kaloo dhan way ilaabi lahayd, waxaanan mashquul ku noqon lahayd qofkan ololaya ama gurigan gubanaya sidaad u baktiin lahayd. fadaaciya mabda uu rumaysan yahay baa wuxuu tilmaamayaa ciddaan kitaabkan iyo sunnadan haysan inay ololayso, inay dad gubanaya yihiin. wuxuu mashquul ku yahay markaas oo maskaxdiisoo dhan uu isugu geeyey dadkan gubanaya ololaya siduu u baktiin lahaa. walidalik baa nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiiskii saxiixeynka ku sugnaa wuxuu tilmaamayey inamaa mathalii wa mathalu ummatii kamathali rajulin istawqada naara. yani wuxuu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam aniga iyo ummadaydu waxaanu isku nahay buu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam sidii qof dab shitay oo dabeetana xaydhaweynta iyo waxyaabaha kan duulduula ay isku dayayaan inay ku daataan isaguna raba inuu ka celiyo. markaasuu nebigu wuxuu tilmaamayey faana aakidun bixujazikum min annaari waantum taqtaximuuna fiiha. wuxuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam aniguna guntigaan idin hayaa waan idinka xejinayaa idinkuna naarta ayaa isku sii guraysaa. yani muhimadiisa koowaad wuxuu ka dhigayey inuu dadna naar ka badbaadiyo. waa muhimatu daaci lula. walidalik ummaddu inay halaagsanto waa inaad ka door bidaa inay hanuunto. waxaa garan kartaa nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu u fakeri jiray. makaa garaacday dabeetana wuu ka tegey markay cidi wax ka aqbali weyday. daaif buu qabtay. daaifna waxaa siirada ku haysaan wixii kala kulmay in sufahadii iyo dadkii carruurta iyo mushkilaadka lagu itixaamay oo dabeetana dhagax lagaga soo saaray magaaladii isagoo dhagax lagu tumay oo dhiigu meel walba ka da-ayo soo baxay ayaa waxa inoo tilmaamayaan axaadiista saxiixa ahi.